شاب عبد الرحمن نوح وأنا دليرة waxaan maanta kula kulanay xeebta magaalada Boosaaso waa nin suugaanta Soomaaliyeed in badan ku soo dhex jiray waxaan wax ka weydiin doonaa suugaanihii ugu saameynta badnaa inta suugaanta Soomaaliyeed ku dhex jiray iyo raadseebka ay ku yeesheen saacad soo dhow waa dhawahay aad iyo aad baan u dhawahay generaalka waa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa nasiib baan u yeeshay inaan galabta waxa weeye aan kula kulmo magaalada Boosaaso xeebteeda markii aan waxa weeye aan hal iyo laba ka soo qaato jaanis badan ma haysano waa waqti habeena suugaantii Soomaaliya waliba gaar ahaan Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo qarnigiisii waxaan soo qaadanaynaa gabayadii kugu saameynta badnaa inta aan suugaanta ku jirtay oo waliba ku saabsan markaan ka weydiin gabayadii sayidku kale sayidku waa gabayadiisu waa badnaa waxa weeye waa halkii kaliya kuma soo koobi karno gabayadiisa iyo waxa weeye magaranaysa waqtigii waxa weeye uu soo qaatay iyo halgankiisii gobonimo doonka ahaa insha Allah waxa weeye waa mar baynu ka badsan doonaa inta laakiinse hal iyo laba markaan ka soo qaadano sayidka nimba ay isku reer yihiin oo ugaadena waa soo gabyaya wuxuu leeyahay Sayid Maxamedow noo soo guur oo xalaha harti ka soo guur gabay ah buu tirinayaa ninkaas hadda waxa weeye magaciisi waxa la oran jiray Xaaji Saleebaan baa la oran jiray gabayga marka saatan uu leeyahay oo gabaygiisa saatan uu leeyahay isagoo aan waxa weeye aan wax badan ka hayn hariguma guntamo nimay hartiga xiro wadaagaan oo xagayaga haddaad iman lahayd kuma xumayneen xakiimkan kugu dhaarinay xarunta noo soo rar buu leeyahay ninkaas gabaygiisu waa intaasaan baan ka xasuusnahay hadda Sayid Maxamed baa marka gabyaayo oo wuxuu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay ka soo guur Sayid Maxamed oo hartiga iyo waxa weeye xariguma guntame ka soo guur anaga nooymo macna gabaygiisu weey sideen wada ognahay Sayid wuxuu la deganaa hartiga u badnaa deegaan ahaan ama meeshu ma gararsaay ku soo halgamay marka isagu ninka u jawaabayo sayidka u jawaabay sayidka gabay jawaab tirinayo oo ninka u jawaabayo oo ku soo aadi maayo gabaygaas oo ah wuxuu leeyahay wax ma tare ugaadeen midna kuma walaalaysto waji badan ay waagi baryaba wax isku yidaameen adigoo wanaagiisa jecel waligii eed sheegtay waa wahlayay sheekada kolku wadar u sheegayo wardiyaan ilaah lagu aqoon weyso ku abaaday intuu marada weyn soo huwado waliyo ku sheegtay wixii waajibaadkiisu yahay waana ma ogaaday ninkii weelka malabka ugu shuba dacar waraabsiye waluu doraad qaaday iyo wacadki beenayay gabay buu tirinayaa intaas baan gabaygaasna ka xasuusnahay islaam jaamac cabdiraxmaan nuux waa nin dhalinyaro suugaanta Soomaaliyeed in badan u dhundalo wax badan ka galabtana waxaan kula kulanay magaala xeebadka Boosaaso inta mar kale intaan barnaamijka lamida ku kulmi doon waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadiino